بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cabdirasaaq faarax xareed oo degan dalkii Switzerland gaar ahaan magaalada Zurich. halkan waxaan maanta u soo fariistay inaan saddex qodob oo kooban ka ilaado dhacdadii bahalnimo ee ka dhacday dalka Djibouti degmada Balbala xaafadda Balduqo taariikhdu markay ahayd 22 December sanadkan aynu ku jirno dabayaaqada ah ee 2015 intaanan saddexdaa qodob gudagelin waxaan rabaa inaan halkan ka xuso inay tahay midnimadu shayga keliya ee lagaga guulaysan karo keligii taliyaha Ismaaciil Cumar Geelle. intaa markaan xuso waxaa kaloo jira dhacdooyin fara badan oo hore u dhacay oo maanta dhacay oo berina dhici doona oo u baahan runta in laga sheego. runtu hadday dacar ka qaraar tahay waa in laga badheeraa. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadday fooli timaado guda qarsiimo way hadhay. shacabka reer joogto walaalayaal diilkii dhiigga dadka iyo dhacaanka shacabka reer Djibouti muddo 40 sano in ku dhow lagu shibeeyay uu buuxsamay haddeed wixii ka dambeeya uu daadinaya. taa waxa uu daliil ah daraad wixii dhacay. markaan u gudbo qodobkayga koowaad halkan waxaan ka cambaaraynayaa ninka sheegta madaxweynaha dalka Djibouti ee Ismaaciil Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Sakariye oo labaduba nin oo ilma adeer ah oo mamaasana oo intay amaanadii dadku u dhiibtay oo awooddu ka mid ahayd intay shaati qabiilnimo u xidheen dibaabado iyo ciidamo ku xasuuqay shacabkii reer Djibouti ee ka soo qayb galay siyaaradii Sheekh Yunus Muuse. runtu haddaan la sheegin walaalayaal waxa la sheegaa garan maayo. bartilmaameedku wuxuu ahaa Yunus Muuse. rasaastu si indhama leh waxa ay beegsatay dad badan oo shacabka reer Djibouti ah oo halkaas isugu yimid. qodobkayga labaad halkan waxaan tacsi tiiraanyo ku dheehan tahay uga dirayaa eheladii qaraabadii aabihii hooyadii iyo dhammaan shacabka reer Djibouti ee dadkooda halkaa ku geeriyooday. intii halkaa ku shiiday waxaan leeyahay ilaahay jannadii haydinkii. inta dhaawacanna waxaan leeyahay ilaahay ha idin boogadhayo sida ugu dhaqsiyaha badan caafimaad sareecanana Allah ha idin siiyo. qodobkayga saddexaad halkan walaalayaal caawa waxaan ka akhrin doonaa jiifta aan tiriyey oo aan ugu talagalay inaan kaga qayb galo baroor diiqda gubaabana uga dhigo inta nool. jiiftadan waxay u dhalatay markaan dhegaystay nin aadan baroloo la yidhaaho iyo odayaal calooshooda u shaqaystayaal ah oo soo ururiyey. wuxuu ku hadlay nin walba uu dhageystay. halkan kaliya waxaan ka leeyahay shacabka dhiigga dadka Yunus Muuse iyo shacabka Djiboutiba inuu ka qiimo badan yahay oo ka sharaf badan yahay oo 80 jira oo dictator ah oo dhiigacaba iyo in la yaalo uu samaystay inuu dhoobada kaga talaabo iyo odayaal beeri qaatayaal oo calooshooda u shaqaystayaal ah inuu dhiigaas ka qiimo badan yahay oo aan marnaba laga hari doonin meel kastoy nala gashaba. intaan markaan ka baxo waxaan idiin akhrin doonaa jiiftadii. jiiftada waxaa la yidhahaa magaceeda 3 goor casheeyaha 4 dooni bay dilay. waxay tiri kay dilay ka soo diray ninka daafacaye durbaanka u tumayow damqashada ayaa tahay. yaa madaxa iga dilay yaa diktoorka dhaawacay da'yartiyo duqaydii yaa daajay dhiigood. dakanada xasuuqa mid waxaa duleed waran dhaawaca waxa daleed yaal marta yaanu doontaa. kay dilay ka soo diray kollay samaha diidane yaan daraa bilaawaha yaan waran ku dooxa. tolkayo waxay dilay aardugaaga weeyaan 3 goor casheeyaha 4 dooni bay dilay. tolkayo waxay dilay aardugaaga weeyaan 3 goor casheeyaha 4 dooni bay dilay. dibiraa hagayso dufan baa hodaayo duxbiirsu isleeyay durdurada wadbaaxigi. dibiraa hagayso dufan baa hodaayo duxbiirsu isleeyay durdurada hee wadbaaxigi. damanow cad kala doon dad hadduu ku jecel yahay dubaabaduhu waa maxay danyar lagu gumaadaa. geeri baa ka dooroon waan isdoortaydaade soo kici diyaarado ku duqeexayaabley bal inaa
balbalana ku sii daa bal ninkay u daran tahay dunidu ha ogaatee. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.